soo noqod wanaagsan. Qaybtan waxaa kaga hadli doonaa maanta ii sheeg Dart. Qaybo badan ay lahaan doontaa Dart anagoo fiirin doono waxyaabihii ku saabsan tahay iyo noocyadeeda sida variableska, loopiska, ii sheeg classeska, waxyaabahaas dhan aan fiirin doonaa. Inta aanan fiirin ka hor waxaa isla fiirinaynaa Dart maxaa waa ayada. Dart waa luuqad programming ah oo stand alone ah. Flutter waa framework oo designs iyo waxaas UI toolkiday dhahaan designerska iyo waxaas in lagu fadhiisiyo mobile applicationska. Ii sheeg multi platformna waaye oo platform walba aad ku rangareysan karto. Marka Dart si u shaqeyso oo u noqoto brilliant waxay subsheen luuqad oo Flutter si u noqoto ii sheeg waxay u subsheen luuqad Dart la dhaho. Dart marka Flutter waxay ka caawinaysaa programming ahaan waxyaabihii logic iyo waxaas dhan inay iyada u qabato. Flutterna dhanka designka iyo waxaas inay suubso. Marka Dart waa arki doonaa. Dart runta aad u fududahay haddii waxaa iska soo qaadan doonaa inaad tusaale programming hore u fahansantihiin oo kale ku dheeraan doono Dart barashadeeda gooni noo ahaan doontaa. Dart haddaa u baahantay inaa iyada keligeed si fiican u barato waa u soo baran kartaa. Laakiin aniga inta muhiimka ah oo course intuu socdo uga baahannahay xooga saari doonaa. Waxaa fiirinaynaa marka Dart sida u shaqeyso waxaa ka mid ah haddaa aragteen luuqadahan Java iyo C++. Haddaa runtii aad soo aragto ama JavaScript haddaa soo aragto Dart waxay kula noqon doontaa wax aad iskaga fudud. Waa ku ordi doontaa wax weyn ma ahan sida luuqadaas oo kale waaye. Dart marka dadka waxay dhahaan badanaa waxay ka soo xaday Java iyo Python iyo waxoogaa ka soo xado isku geegeysatay kabacdi meesha ka soo baxda. Waxyaabo lagu xantay ka mid tahay. Marka waa isla fiirin doonaa Dart practicada Dart sa u qaadano. Waxaa jiro website oo la dhaho Dartpad. Dartpad-kaasi website-kaas waa kana hadda u jeedaan. Website-kaanita aan ku rangareyn doonaa. Haddaa aragto website-kan wuxuu ka bilaabanayaa function oo main ah. Function-ka mainka every programming language oo lagu arkaa function main oo midka ugu koowaad oo la rangareynayo waaye. Website-kan marka linkigaas kore haddii aad weysa xataa meeshaan waxaa ku qori kartaa Dartpad haddaa ku qorto linki ugu horeeya waa dartpad.dev al lahaa shaashada videoga idin soo saara insha Allah. Haddaa ku dhufato waa kana ku soo baxaa marka anaga maadaama noo furnaa kana iska xirno. So marka Dartpad haddaa fiiriso function-kan oo mainka ah midka ugu koowaad la rangareyn doono waaye. Wax walba u baahannahay marka mainkaas dhexdiisa ku dhex qoran doonaa. Tusaale haddii aad u baahannahay inaad soo daabacano print u isticmaala asiga semicolon waajib waaye. Dad waxaa jira ayaantan dambe Python iyo waxyaabahaas familiar la ah. Luuqadihii hore sida C++ iyo Java iyo dadkii oo soo dhigan jira arrintan oo kale aad u yaqaanaan. Haddii aad ka tagto semicolonka koodkaaga ma shaqeyn doono. Error ku qabsan doono oo syntax error ah waa lagu sheegi doonaa koodkaaga semicolon ka maqan. So marka haddaa fiiriso hello world oo kale haddaa iska soo daabacano hello world caan noqoto luuqad walba markii la bilaabo hello world la dhahaa. So hello world haddaa soo daabacan aaran gareeno qaybtan kale oo console ay ku qoran tahay natiijada ka arkeynaa. So ii sheeg Dart xoogaa inaad isla fahanaa rajeynaynaa videoga xiga iyo waxaa fiirin doonaa Dart variableskeeda sida loo abuuro list arrayskeeda noocyadeeda dhan insha Allah. Marka videogan video xiga ana xiga peace. Hello soo noqod wanaagsan. Videoga waxay noo mareysaa anagoo Dartpad oo fiirinay oo printigan yarka soo daabacnay. Videogan waxaa uga hadli doonaa variableska Dart markii la joogo sida loo abuurto iyo sidii loo install gareeyo kabacdina loo soo daabacdo qiimaha oo variableskaas ku jiro. Dabcan variablesna in idin sharaxa uma maleynayo howlay qabtaan. Dart markii la joogo waxay dhahaan static variables ay dhahaan. Variableka tusaale haddaa qiimo caadi ah ku shubto mar labaad tusaale variableka oo string ah haddaa qiimo ku shubto ma dhihi kartid haddana variableskaas oo string ahaa qiimo oo integer iyo ku qaban doonaan tusaale. Data typeska waxaa jira horta data typeska inta ugu caansan ka fiirinaynaa. Waxaa ka mid ah string ka mid ah boolean ka mid ah integer ka mid ah iyo Dart variable kale oo aad u qabto oo dynamic loo everything wax walba qaadanayo. Tusaale haddaa fiirino meeshaan string oo kale haddaa subsano oo name magaca ku shubano magaca kale tusaale Faarax aan dhahno variable-kan wuxuu noo hayaa hadda variable-kan marka abuureyno waxaa sheegaynaa date type oo variable-ka magaciisa iyo qiimaha aad ku shubanayno variable-ka. So haddaa u baahannahay inaan soo daabacno variable-kaas wixii ku jira printigeena isticmaalaynaa after that variable-ka magaciisa.
okay marka haddaaran gareyno tusaale waxaa noo soo bixi doona aan rajeynaynaa faarax haddaa ujeedo halkan faarax uu noo soo baxay laakiin ma dhihi karno variablekaas oo integer oo stringiga ahaa waxaa noogu shubtaa tusaale 30 oo kale iigu shub haddaad dhahdo oo lagu diidi doonaa sababtana waxay tahay variablekan string waaye xogtan aa ku shubaysana integer waaye so variable oo string kuma shubi kartid xog oo integer ah marka errorkaana ku qabanaya meeshan documentationka haddaa fiiriso ku sheegayaan value type oo integer ah oo value type waxay ka wadaan 30kaas soo geliyo oo integer ah variable oo string kuma shubi kartid so marka 30kan soo u shaqeeyo waxa u baahan tahay variable kale oo integer ah inaad subsatid tusaale age kale iska dhaano oo age qiimaha ku shubano hadda uu naga yeelay hadda arkayso bacdi aan soo daabacno age hadda soo daabacdo you can see it magaca koowaad oo faarax ahaa oo loo geeyay marka variableskaasayto hadda waxaa aragnay string iyo integer si loo abuurto age laftirkiisa haddaa dhahdid waxay ugu shubtaa qiimo oo tusaale faarax oo kale ku shub age waa laga diidi doonaa sababta waxay tahay age waa integer waaye faaraxna string waaye oo qoraal caadi ah waaye marka lagama yeelayo daarta markii la joogo ii sheeg ka diidahayn arrintan lama adeegsado waxaa kaloo jiro data type oo pool yani kasoo gaabsheen true and false bisu qaadana not integerna ma ahan stringna ma ahan true and false tusaale snide oo kale aan iskaga bixino variablekan qiimo oo true ama false aan ku shubi karnaa true and false okay marka ninkan error nagu haya naga xir variablekan true aan ku shubnay hadda asiga isku dayn inaan soo daabacno snide noo soo daabac snide okay snide noo soo daabaco waxaa noogu jiro snide true noogu jiro bal soo daabaca laakiin ma dhihi karo true gaanayto kale tusaale haddaan dhaho true colon haddaa geesaha ka geliyo waxay noqon doontaa string so marka lagama yeelayo meesha haddaa aragto value oo string ah looma ogolo data type oo boolean so instead of colonkaas oo inaad ka saartaa isticmaashaa true ama false labada qiimo bas uu qaadan karaa nothing else wax kale ma qaadan karo marka labadaas saddexdan variable kuwa ugu caansan oo badan aad loo isticmaalo waaye stringiga hadduu ahaan lahaa iyo integer hadduu ahaan lahaa boolean naftirkiisa hadduu ahaan lahaa waxaa kaloo jiro variable kale oo asigana runtii aad caan u ah dynamic lahaa dynamic magaciisa ka fahmi kartaa dynamic anything ku qaadana xog walbo tusaale ay sheeg name2 oo kale haddaan dhahno name2 oo cali ah ku shubano name2 cali haddaa ku shuban variablekan name2 hadda daa fiiriso waxaa noogu jiro cali noo soo daabac horta cali aan aragno inuu ku jiro okay name2 so haddaa soo daabacano name2 cali oo arkaynaa ii sheeg midda kale databadkan waxaa waaye internetka uu ku xirantay speedkiisa marka haddaa fiiriso name2 aa abuuranay tookadan 30 noogu shub instead of haddaa waxaa noogu jiray xog oo string ah caliga ku jiray haddana waxaa ku shubnay cod ii sheeg xog oo integer ah haddaa soo daabacno cali hore isku ilaawaa tiradan 30ka oo mar labaad soo qaadanaa 30 hoostaan ku yeesana tira kale ka dhigno 29 oo kale dhahno you see ii sheeg waa kana 29ka iyadana wuu soo saaray so marka videogan waxa ugu talagalay data typeska qaybahooda essentialska inaa fiirino data markii la joogo inta ugu caansan oo badanaa la isticmaalo waa afartan dynamigas stringiga integerka boolka variable kale oo asiga xataa waxaa jira var la dhaho oo asigana sida dynamic oo kale u shaqeeyo oo data daa ku shubata hello world dabcan wuxuu u shaqeyn doonaa sidoo kale haddaa soo daabacano waqti inoo shaqeyn doonta insha allah okay data noo soo daabac so marka variableska inta ugu caansan intaas waaye insha allah videoga xigaa inoo xigo peace gang isku soo noqon wanaagsan videogan marka waxaan rabnaa inaan ku sharaxno functions sida loo abuurto sida qiimo loogu shubto waxa noocaas oo kale data markii la joogo functionska qaabka loo abuuro qaabka loo wacdo fiirin doonaa functions maxaa waaye functions waxaa waaye shaqo aa meel gooni ku qabsatay shaqadaasna u baahantahay howl specific inay kuu qabato kabacdi programmingkaaga iyo meel ka mid inaa uga wacto howshaas oo sida gooniga ah lagugu soo qabtay so marka
functions markii daarta la joogo tusaale ninkan hadda ugu horeeyaba functionkan main la dhaho waa function inuu yahay waxaa noo cadeynaya labadan calaamad oo curly brace la dhaho oo geesaha uga xiran functionka magaciisa markii la qoro capital letter kama bilaawdo badanaa functionska small letter ka bilaawdaan laba bracket oo geesaha looga xiray functionska markii la joogo laba qaab loo kala saaraa functions oo void iyo functions aan void ahayn functionska void waxaa laga wadaa functionkan qiimo ma soo celin doono function aan waxba soo celinaynin waa return time malaha qaal functionkan hadda oo mainka return hadda u yeelno return wuxuu soo celin doonaa dhaan tusaale xog noocan oo kale ana laga diidi doonaa so ninkan oo kale lama ogolo functionkan waxaa la leeyahay value type cannot be return a function main because function return type ma ahanbo functionka in wax soo celi looguma talagalin void waay functionka maadaama uu void yahay laakiin asiga dhexdiisa waxa uga wacan kartaa functions kale oo wax soo celin karo tusaale function kale hadda inta ku abuurano function sida loo abuurto waxa waaye functionkaaga hadduu wax soo celinaynin void ka bilaabay laakiin haddaa ogtay inuu wax soo celinayo waxa uu soo celinayo ka bilaabay tusaale string oo kale functionka inuu noo soo celiyo u baahan nahay get name sa iska dhaheena ama get name magacaas bisa u bixino labadaas bracket curly brace kaaga marka functionka hadda error saaran waxa waaye functionkan waa abuurtay wuxuu soo celinaya dhahda string soo celinaya so marka xogta stringiga aawa lagu dhahay xogta uu soo celinaya aawa so marka inaan u sheegno waaye return waxa soo celisaa magac waxa jecesha return faarax oo kale iska soo celi so marka hadda markii faarax soo celisid waa laga errorka waa laga leexiyay sababtoo ah wuxuu soo celiyay so marka functionkan oo return leh ma ka dhaxwacan karnaa functionkan oo void ahaa yes waa ka dhaxwacan kartaa functionkaas asiga bas loo diiday inuu void soo celiyo laakiin functions kale oo wax soo celin karo waa laga dhaxwacan karaa tusaale variable suubsado oo name la dhaho namekan wuxuu iheenaa functionkii hoos kusoo suubsanay oo name oo iheenaa so meeshaan iska fiiri marka variablekan qiimaha ku shubanayo name u bixiyay data typekiisa string waaye functionka variablekaas ku shuban data typekiisa string waaye so markii labadood inay ismaaj gareeyaan la rabaa tusaale variablekaaga hadduu integer ku yahay uu functionkiina uu soo celinayo xog oo string waa laga diidi doonaa because functionkan wuxuu soo celin doonaa xog oo string variableka uu dhiiboosidna waa integer waaye so isma match gareynayo marka instead of waxa u baahan tahay functionka data typekiisa inuu lahaado variableka so marka variablekan hadda soo daabacno qiimaha ku jiro name oo kale arjinina faarax inuu noo soo daabaco mar walba semicolon ta iska hilmaamin waajib waa dabcan markii inta la joogo dart so hadda u jeedo faarax waa noo soo daabacay marka dart markii la joogo comment hadda u baahan inaad wax comment gareyso labadaas calaamad tusaale this is return function return function comment inaad wax saarta hadda u baahan tahay sidaas loo saaraa tusaale kan oo kale saarayna hadaan dhahno qoraalkan dhan comment aan u qaadana errorka kugu soo laabanaya oo returnka aw lagu dhahaa so ka qaadno marka meeshan waxa ku barata hadda functionska si loo abuuro hadduu functionka return leeyahay sida return looga dhigo function void hadduu yahayna sidoo kale void inuu ahaado so tusaale function kale suubino asigana oo xog integer oo kale soo celinaya get age aan dhahno get age labadaas bracket curly brace bacdi error ku qabanaya age aawa lagu dhahaa xog bahalka xogta oo integer ahayd aawa tusaale may xogta integer ahayd tusaale meeshan faaraxda soo celina maxaan qabsan doono anaga meeshan saa u jeedo waxa soo sheegnay return type inuu leeyahay integer functionkan get age loo marka get age hadda wuxuu naga expect gareynayaa inaan u soo celino xog oo integer oo tiro caadi oo ii sheeg point ku jiran anagana faarax u baasno string so ana laga diidaa marka value type string ma ahana lagu dhahaa integer so instead of kaas ku qor lahayn waxa u baahanahay xog kale inaan iska soo celino 5 dheh si aan u isticmaalno age kan functionka mainka badanaa wax walba laga dhex isticmaalaa integer age get age functionkan get age oo dhaxwacno okay da u baahanay marka inaan soo daabacno get age waa kana age oo wacno okay marka hadda ran gareeno age oo 55 iyo faarax inuu soo celiyo waa kana faarax iyo age so that marka ii sheeg hadda waxa meeshan ku fahantay sida function loo abuurto function hadduu void yahay iyo hadduu ahaan lahaa function return leh marka waxaa jira calaamad oo arrow la dhaho oo badanaa instead of hadda meeqkooda meeshan ku qorno line koowaad kan comment waa iska dhaaf line labaad line saddexaad three lines ha qorno kaliya faarax bas soo celineen
marka instead of lineskaas qori lahayd kooskaagana tirada uga badan lahaa waxay suubshay calaamad yar oo arrow ah oo keliya return hawshaan dhan kuu qabanaya laakiin hal mar aa la isticmaali karaa waa markii hal wax ay kusoo laabanayaan meeshaan condition aa ku xiraynin oo kale tusaale haddii aysaan noqoto inta howlo kale haddaa ku qabanaynin keliya waxaa u baahan tahay marka calaamadaas inaad isticmaasho okay hal mar aan iska tirna intaan ilaa xagga xire bracketka ma taabanaysid bacdi calaamadii wixii aad soo celin lahayd sheegay marka farax semicolon taada okay marka haddii hadda aaran gareyno exactly qiimihii hore oo meeshaan ku jira faarax oo kale inuu noo soo celiyo so saa u fahan isbeddel inuu dhacay axmed ha ka dhigno meeshaan aaran gareyno instead of faarax hadda axmed ka dhigaa so qiimihii sida hore functionkii hawsha hore uu noo qabanayo kale noo qabanaya haddana waxaa kusoo koobnay one line of code kusoo koobnay three line meesha hadaa ka ah kanna sidoo kale aan ka dhigno calaamadaas isticmaalno wuxuu soo celinayay aan ka dhigno marka yaa semicolontaadana hilmaame so hadda daaran gareyno instead of 5544 inuu soo celiyo hadda maxaa baratay arrowgina waa baratay loo isticmaalo arrow meel isticmaalaa markii aad ogtahay hal wax oo kuu soo laabanaya in markaas isticmaalaysaa oodan conditions iyo waxyaabo kale aadan isticmaalayn laakiin haddaa u baahan tahay conditions iyo howlo badan markaa soo martay kabacdi in return type lagu suusho arrowga ma u baahan markaas kulli bracekaaga inaad isticmaasho u baahan tahay casharkeena maanta intaasuu noogu ekaa waxaan rajeynaa inaad fahanteen isku soo noqod wanaagsan videoga waxaa kaga hadli doonaa arrays waxay dhahaan oo data laakiin markii la joogo waxaa loo yaqaanaa list ayaa loo yaqaanaa luuqadaha kale sida javascript iyo array u yaqaanaan data markii la joogo list ayaa la dhahaa listiskaas sida loo abuurto sida u shaqeeyaan xogta sida loogu shubto xog loogu daro xog looga baxsho qaabo noocaas waxyaaba noocaas oo kale ah fiirin doonaa markii laakiin data la joogo listiga waxaa loo abuuraa sembry mar walba waxaa sheeganaa isheeg datatype wuxuu yahay tusaale listi uu noo yahay datatypekeena listiga marka wax walba u baxsan kartaa data la dhahaa xogta ku jirto tusaale xog waxaa ku jirto oo magacyo kale faarax axmed oo kale axmed tusaale xaliimo magac waxa noocaas oo kale iskaga shubana xogtan waa xog oo waxaa ku shuban list ah marka xog oo list ah ku shubanay bacdi haddaa fiiriso saddex magaca ku darno meeshaan saddexda magaca soo daabacano qaabkii u yaalaan aan fiirino saddexda magac variableka noo hayo waxaa la data marka xogta uu noo hayo aragno okay waa kuwana saddexda magac faarax axmed iyo xaliimo markii la abuurayo listi isheeg capital letter inuu ka bilaawdo xarafka ugu horeeyo variableka magaciisa aad sheegto si aad qiimo ugu shubto waxaa u baahan tahay labadaas bracket inaad furto bacdi qiimaha koowaad markaa sheegto column comma aad dhahdo qiimaha labaad comma qiimaha saddexaad comma sidaas u socon doonaa laakiin meeshaan hal dhibaa jiro ii sheeg listigeena ma cad list waa iska caadi ah waaye tusaale listigan oo kale haddaa u baahanna inaan wax ku darno qiimihii hadda saddex qiimaha hadda kor kusoo darno faarax axmed xaliimo qiimo kale inaan ku darno haddaa u baahanna waa ku dari karnaa qiimo kale waxaan dhihi karnaa ii sheeg iyo xasan oo kale xasan oo kale okay xasan oo kale ku darnay soo daabacano so marka ii sheeg faarax axmed iyo xaliim waxaa lagu daray xasan lagu daray okay haddaa u baahannahay inaan wax ka bixino function remove uu leeyahay dabcan listiskana waa midka ugu isticmaalka badan waa luuqad walba haddaa fiiriso arrayska iyo listiska badan aad loo isticmaalaa functions runtii la soo koobi karin oo tiro badan inta ku jiro oo waxyaabo badan kuu qabanayo inaad fiiriso function mid walba daraasayn fiican ku suubiso runtii aad u wanaagsanaan lahayd marka haddaa u baahanay inaad listigaas ka dhex bixino hal xaraf tusaale remove oo kale haddaan dhahno tusaale axmed oo kale ka saar meeshaan axmed iska soo koobiyeysano okay haddaa soo daabacno axmed in laga saaro listiga la rabaa sida ujeedo faarax xaliim iyo xasan la soo reebay axmed listiga waa laga saaray marka hadda listiga markaa ka saarayna waxaan dhahnaa axmed colon geesa uga xirna colon labada colon haddaan ka reebno maxaa dhacaya oo tusaale axmed caadi qorno waanu lagu qabsan doonaa lama ogolo axmedkan lama yaqaano as a variable u qaadana waxaan qiimaha u baasgareynayso soo marka suu u fahmo qiimahan inay qiimo oo list ku dhex jira ay tahay waxaa la rabaa inaa string ahaan ugu sheegto colon kusoo xirta soo marka haddaa fiiriso meeshaas
data waxaa noogu soo dartaa qiimo kale oo kusoo daraynaa oo tusaale integer oo kale waxaa suubi karnaa 30 noogu dara dhaynaa okay 30kaas noogu dar managa diidayo wuxuu suubinaa saddexdii magac oo Faarax Xaliime iyo Xasan bacda 30 gadaal ka sii raaciyay Axmed anaga ka tirnay 30 gadaal ka sii raaciyay dhibka jira meeshaan waxay tahay marka anaga variableskeenu maxaa ugu talagalnay listiga maxaa ugu talagalnay xog string ma ugu talagalnay xog integer ma ugu talagalnay hadda wax walba uu qaadana hadda string u dhiibno hadda integer u dhiibno everything isku dhex daraa mararka qaar waxaa u baahan kartaa listigaaga string bas inuu noqdo inaad ku xisaabtantaa dhici karto mararka qaar waxaa u baahnaan kartaa listigaaga inuu integer bas noqdo so marka listigaaga wuxuu yahay inaad sheegto marka u baahantay data type listiga agtaga doontaa labada calaamad greater than less than isticmaalay marka listiga wuxuu yahay sheegay listiga maxaa loogu talagalay inuu keediyo anaga hadda waxaan dhahnay string uu keedina so marka waxaa loo ogol yahay bas xoggo string inay soo gasho hadda meesha haddaa fiiriso 30 errorkan qabsada waxa waaye listiganeetu waxaa loo ogol yahay bas string inuu soo galo not integer iyo wax kale inay soo galaan marka waa nalaga diidaa ninkan haddii u baahanay ka waran listigeena integer inuu noqdo meesha string eeda integer ku bedelaynaa kuwaana error koray marka xogtaana haddaa aragto string waaye listigeena anaga waxaan dhahnay integer bas inuu noqdo rabnaa so marka waa nalaga diidaa waxaa la dhahay meeshaan looma ogolo string waxaa loo baahan yahay integer so stringgeena aan ku celino okay marka kan aan ka saarno marka string capital okay halmaamin okay ninka aan ka bixino so meeshaan waxaa ku fahantaa hadda list si loo abuurto qiimo loogu shubto qiimo inaad ka dhex bixin karto oo kale list hebel tusaale hadda listiga markii qiimaha laga saarayo remove hadda isticmaalno oo value-ga toos u sheegnay marka mararka qaar waxaa dhici karta point inaad point gareysato listiga meesha uu uga jiro godka indexka uga jiro dabcan luuqad walba haddaa fiiriso listiska markii la joogo waxay ka bilaabaan tirada 0 ay ka bilaabaan ilaa listiga meesha uu tago tusaale hadda Faarax oo kale godka koowaad uu ku jiraa laakiin godka koowaad lama dhahayo markii programming la joogo waxaa godka 0 godka ibraada loo yaqaanaa godka koowaad kana ah godka labaad kana ah so marka godgod inaad u tilmaamsato haddaa rabtid waxaa isticmaali kartaa tusaale Faarax oo kale inaan ka baxna isku dayanaa meesha dot remove at uu leeyahay ka saar meesha indexka inaad u sheegtaa loo baahan yahay indexka ibraad marka wuxuu u fahmi doonaa ninkan okay haddaa ran gareeno Faarax inuu meesha ka baxaa la rabaa waxaa isku soo haray Xaliimo iyo Xasan gadaal uga soo darnay iyo Xaliimo Axmedna anaga inta ka saarna caada ugu sheegnay Faaraxna waxa ugu sheegnay qaab oo as index marka listigeena hadda waxa waaye string waaye integer hadduu yahay integer ka dhigay haddaas u baahneen in uu listigaaga wax walba inuu ku qaado haddaa u baahantay waa iska bixin doontaa list caadi ka dhigan doontaa everything marka hadduu qaabilaa marka videogan waxaa ku sharaxaynaa list sida loo abuurto qiimo loogu shubto qiimo aad uga tirtiri karto qiimo aad ugu dari karto insha Allah inaad fahanteen rajeynaa peace hagaag isku soo noqod wanaagsan videogan waxaan rabaa inaan wax yar ku sharaxo aan faham guudna ka qaadano fikradda ah loops programmingka every programming markii la joogo waxaa jira fikrad loo loop oo runtii aad loo isticmaalo developmentigana markii lagu dhex jiro oo dabcan waxyaabo badan dadka ka caawiso okay Dart markii la joogo waxaa jira loops badanaa jiro marka videogan waxaa ku focus gareyn doonaa loopska aan isticmaali doono inta course-ka aan wadno okay marka loopska isticmaali doono oo hadda oo focus ka saari doono waxaa kamid ah for loop while loop iyo isheeg for in loop laba for ay kala yihiin for in iyo for ay kala yihiin marka labadaas loop inaan aragno dabcan waa labada function labada loop oo aad loo isticmaalo so marka markii fly oo Dart la joogo loopka wuxuu kala siman yahay dabcan luqadahan JavaScript iyo Java iyo hadda loop ku soo aragtay kana sidoo kale waa dabcan wax oo saas difference uga dhaxeeyo same waa sida u qornaayeen oo kale u qoran yahay tusaale for loop oo kale hadda tusaale while ku hormarayna while loop ku hormarayna while loop sida u shaqeeyo while loop fikradda guud oo while loop waxa waaye magaca hadda fasirato kale hadda while waxa socotaa ilaa laga gaaro meesha lagu tilmaamo tusaale waxa suubsan karnaa variable yar oo iska suubinaynaa
I waxa ku shubaynaa 0 ku shubaynaa okay marka while waxa dhahaynaa while waxa socota aydaas inta ay mataqaanaa ka yar tahay 5 oo kale okay hadda waxa la suubinaa I sheeg ma ka yar tahay 5 yes haddii true noqoto loopka la soo dhaxgala waa la laabanaa haddana I ma ka yar tahay ha so marka anaga waxa u baahanay mar walba I ina hal ku darno si ay qiimaha u soo gaarto haddii aan ka aamusno I isma bedeli doonto meesheeda joogi doontaa okay marka mar walba loopka la soo dhaxgalo waxa iska soo daawacanaynaa I laftirkeeda iska soo daawac si aan u aragna I wax iska bedelay mar walba I waxaan dhahdaa plus waxa laga wadaa hal iigu dar mar walba hal iigu dar ama plus equal 1 waa dhihi kartaa so marka while loop hadda inta aan fiirino okay hadda ran gareyso waxa arki doontaa ii sheeg 0 laga bilaabay 0 1 2 3 4 anaga marka hadda expectation waxa laga yaabaa inaad dhigaysid ilaa 5 maxaa loo socon waay okay marka loopka hadda fiiriso I ma ka yar tahay 5 dabcan ha 0 waay 0 hal soo daawaco I ma ka hal iigu dar I marka hadda waxay tagtay hal ma ka yar yahay 5 ha ii soo daawac hal ilaa dhagdhag si loogu soo socdo 4 la imaado 4 ma ka yar yahay dhag hal iigu dar 5 ma ka yar tahay marka dabcan ma yahay so instead of ugu sheegtid 5 ma ka yar tahay equal inaad dhahdid I haddii ka yar tahay ama ii sheeg ay la eg tahay 5 hadda dhahdo ilaa 5 waa la soo daawaca sababtoo ah 5 waa isla eg yihiin kama yaro laakiin waa isla eg yihiin so hadda fiirso meeshaan 0 1 2 3 ilaa 4 5 fikradda while waa sida programming caadiga ah ku arki jirto oo kale loop sidaas u shaqeynaa haddii aan fiirino kan comment noo saar for loop asagana sidoo u shaqeeyo for loop instead of kan hadda meeqa line koodu naga qaato 1 2 3 4 iyo kan hata iska yada ku liberacekan laftirkiisa for loop dabcan hawshan wax yar inay ka fududa u maleysaa laakiin ani ahaan while aan jeclay badan inaan adeegsado sababtoo ah while fikradda iyo wax dhan way kala baxsan yihiin laakiin for hal meel ayada dhan wax dhan ku soo koobay so hadda fiirino for marka qorato variable-ka aan korkan ku subsan markii aan while joognay gudaha ku soo subsan doona tusaale ayaa dhahayna wuxuu la mid yahay 0 semicolon inaad dhahdid waayo ko horta qiimaha lagu dhex socon doono marka inta waxa dhahayna ay haddii ka yartahay logic ah hadda while loop marka joognaa inta ku qoranayn ay haddii ka yartahay ama la eg tahay 5 meesha aan ka dhahayna inta hadda waxa ka dhahayna ay ma ka yartahay 5 yaa ha waa way ka yartahay ay plus ay hal noogu dar plus hoostan soo gashanay inta la soo galiyay so marka inta kaliya waxa ku qoranaysaa wixii dhici lahaa arintaas markii dhacdo kaliya waxa noo soo daawacdaa ay noo soo daawac okay I value aan dhahayna I value okay I value okay kamtaada iga noqotay so marka hadda soo daawacno waxa arkaysaa I value markii waa 0 ku jira markii labaad 1 ku jira markii labaad ii sheeg 2 ku jira 3 4 sida fikradii oo kale waa ilaa 4 hadda la socday hadda u baahan tahay macla 5 in la soo bandhigo meeshaan ay gola ka raacin doontaa so marka condition-ka adigu kugu xireeyo marba xaaladda aad ku jirto kala waa anaga hadda xaalad yar oo iska simple ah hal ilaa 5 oo kale loopkan inuu socdo marka fikrad yar oo iska simple ilaa intaas ku adeegsanayna for loop sida loo abuurto variable loo install gareeyo condition-ka loogu xiro I plus marka for loop ninkan wuxuu xoogaa kaga duwan yahay markii variable-ka la suubiyo oo 0 lagu shubo condition-kan la fiiriyo tusaale variable-kan 0 ah 0 marka yar yahay ama la eg 5 ha markii la inta la soo galaa xagga looma wareegayo oo I plus lama dhahayo qiimahana la daawacaa markii la daawaco ka bacdi lagu daraa ka bacdi waxa loo laabanaa hadan initialization-ki dag fikradda sidaas ku socon doontaa okay for loop hadda ina aragna fila ayadana wax un ka fahanay okay iyadana koobi noo saar waxa inoo xigo ii sheeg for in loopkaas dabcan runtii aad loo adeegsadaa markii la joogo falaata dadka oo aad ku adeegsada aniga ka mid ah for loop waxay ka caawinaysaa tusaale list of data da haysato tusaale xog oo list kaaga buuxdo kala da haysato aa u baahan tahay listigaas inaad ku dhex socotid xog walbana si fudud oo easy inaad u soo bandhigatid forkaas runtii aad u qurux badan instead of dadkan isku daalin lahayd for iyo while inta isku daalin lahayd forkaas runtii aad u fiican so jeekina marka tusaale listiga subsanayna oo data la dhaho listigan waxa ku shubaynaa xog oo integer ah tusaale Ahmed okay Faarax okay iyo tusaale Xaliima oo kale okay hadda listi yar subsano oo data oo string ahaayo tusaale 2 3 magac u haya Ahmed Faarax Xaliimo
marka haddaa u baahanay Axmed Faarax Xaliimo inaan soo daabacno oon aan ku dhex socono instead of aan nimankan adeegsan lahayd foorkaasa aad u qurux badan oo badanaa waxaa loo adeegsadaane listiska xog oo listis oo kale in lagu dhex socdo kale foortaas la adeegsadaa fooraa qori doontaa foortan waxay kaga duwan tahay foor markaa qortid waxaa sheegay xog walbood marka fiiri tusaale Axmed oo kale markii la maraayo variableka xogta helan lahaa Faarax markii la maraayo variableka inaa qeextid la rabaa marka okay tusaale variablekaas abuurano tusaale waxaa iska dhahaynaa element oo kale element waxaa iska dhahano element okay element ninka oo inta ku dhex socon doono oo qiimaha hayn doono waaye element marka intuu ku dhex soconaa inaa u sheegtid waaye in wuxuu ku dhex socon doonaa data ku dhex socon doonaa so bes waa loopki uu isku dhamaado intaas le waaye kaliya variableka abuuratay ii sheeg listi uu dhex socon lahaana waa sheegtay marka haddii aa isku dayna hadda inaan soo daabacno element wax noogu dhex socday okay element haddaa isku dayna inaan soo daabacno wax yar saa u fahano oo in loop okay element meeshaan waxaa fiirisaa double connotation inta iigu jiro value-gaaga haddaa u baahantahay data markii la joogo double connotation dhexdiisa inaa ka dhex isticmaasho waxaa isticmaali doontaa calaamada sign dollarka kabacdi qiimaha value-ga sheegi doontaa okay so hadda daaran garayn waxaa filaynaa Axmed Faarax iyo Xaliimo inuu noo soo bandhigo mujeedaa markii koowaad for in loop Axmed la soo bandhiga for in loop Faarax la soo bandhiga for in loop Xaliimo la soo bandhiga okay aqyaarta marka waxaa rajeynayaa fikrad guud inaad ka qaadateen saddexdan loop oo the most usage oo la isticmaalo waaye markii data la joogo loopiska oo aadka loo isticmaalo dabcan waan arki doonaa projectskeena dambe markaa isticmaaleyno qaar ka mid ah inayna soo dhex galaan marka fikrad guud inaad ka qaadateen aan rajeynaa insha Allah anaga waxa yaroo waxaa suubina hadda oo iska deema ah adiga marka waxaa isku daydaa xog badan inaad ka suubiso tusaale listigan oo kale inaad basato waxyaabo nooc badan inaad isku daydo si fikradda mataqaanaa si fiican kaaga dhaadhacdo marka insha Allah waxaan rajeynaa videoga inaad ka bogateen oo aad ku fahanteen loopiska iyo dart markii la joogo sida u shaqeeya insha Allah video xiga noo xigo peace soo dhawaada qiyaarta videogan waxaan rabaa inaan wax yar ku sharaxo if statementska tusaale conditionalka markii la joogo dart sida loo isticmaalo if statementiga else if iyo else laftarkeeda sida loo isticmaalo so marka dart markaa joogno conditionalkan dabcan badanaa luuqad aan lahayn ma jirta u maleynaa conditionalka wax kale maaha if statementska waaye tusaale marka waxaa laga yaabaa inaa waxyaabo qaar isbarbar dhigto tusaale sheygan hadduu ka weynaado sidaan ii suubi hadduu sheygan la ekaado sidaan ii suubi so marka xaaladahaas oo kale oo fikirka u baahan conditionska ku xiran luuqad walba badanaa waxaa caan ah oo aadka loo adeegsadaa waxay tahay if conditions waxay dhahaan okay if conditionska marka waxaa rabnaa maanta inaan wax yar dul marno dabcan if conditions qof walba oo programming xoogaa wax yar kasoo arka xataa dabcan uu faahfaahsan saas inuu uguma dheeraan doono kaliya waxaa fiirin doonaa dart markii la joogo if conditionska sida u egyihiin iyo sida u shaqeeyo luuqadaha kale maxay kaga duwan tahay okay marka luuqadaha kale dabcan hadiisan Java iyo JavaScript iyo C++ iyo dabcan same as exactly waaye waa isku mid waaye wax saas ay kaga duwan yihiin ma jirto tusaale marka haddaa isku dayno inaan practice gareeno fiiri tusaale waxaa suubsanaynaa variable x kaaneed kale waxaa iskaga shubanaynaa 9 so marka haddaa u baahanay variable x kan inaa jeekina inay 9 ku jirto ama wax kale inay ku jirto waxaa u baahanay tusaale if inaa adeegsano if inaa dhahno so marka haddaa dhahno meeshaan if ma la mid tahay 9 haa haddii noqoto noo soo daabac print sax waaye ama laab Soomaali iskaga qorno sax waaye okay so marka hadda conditionka waxaa la fiirinaa if haddii oo hadda variablekan x waxaa noogu jiro 9 x marka ma la mid tahay 9 haa haddii true ay meeshaan kasoo baxdo saxa la soo daabici doonaa haddii true kasoo bixi weysane waa la iska dhaafi doonaa wax lama soo daabici doono so marka haddii aan fiirino x hadda tusaale 10 oo kale haddaan ka dhigano okay meesha aan ka sugayno sax waaye wax mana loo soo daabici sababtoo ah conditionkan sax uu noqon waa x 10 noogu jiro anagana waxaan dhahnay x 9 ma la mid tahay dabcan okay ma la mid ahan marka
okay instead of haddaa u baahantay ina haddii conditionkan hadduu qalad noqdo inaa wax kale aa aragto waxaa jiro if markaa dhahdo kabacdi ii sheeg kulli bracekanit markuu meeshu kasoo xirmaayo kala tagay else aa ku qoray okay elsegan hadda waxay naga caawinay okay else is called okay else is called oo kale iskaga soo qorno okay else marka waxay naga caawinay conditionkan kor oo ifta haddii qalad noqoto oo halkan loo soo bixi waayo in inta loo soo boodo wax walba oo dhaco so marka hadda waxaa la fiirin doonaa x 10 noogu jiro Soomaa x ma la mid yahay dhahna 9 waa may conditionka lama aadi doono inta loo soo boodi doona haday waa la iska soo boodo haday wax ma loo soo daabicin hadda dii aran kareeno waxaa rajeynayaa inuu else is called in loo soo daabaco sida u jeedo meeshan waxaa loo soo daabacay else is called waa iska simple fikradiiru iska simple waay waxaa dhici kar mararka qaar conditionskaaga inuu bato tusaale hadda anaga 10 oo kale iska dhaanay expectation ina leedahay laga yaabaa isdhiisid tusaale 10 tiradan waxaa laga yaabaa 10 inay noqoto 12 inay noqoto 12 inay noqoto laakiin aadan ogeyn marka si aad ugu xisaabtantid tiradaas oo kale haddii aad isdhiisid 10 ama 12 ama 12 ilaa 13 15 ay ka tagto if else bas ma ku filnaan karto xaaladaas oo kale marka waxaa loo adeegsadaa else if waxa la imaanayo oo else tan way ka dambeyn doontaa kulli if ta marka aad soo xirtid meeshaan imaan kartaa tusaale waxaan dhihi karnaa else if aan dhahay bracket kaaga like sidoo kale waa marka inta hadan condition ku xireenaa condition kala meeshaan ku xireenaa else condition ma wadato like else if condition ay wadataa if too kale waaye condition waxaan ku xireenaa tusaale hadda x9 way noqon weyso Soomahan ha else intii loo soo boodi lahaa dhaxa u sii galeen waxaan dhahnaa x9 hadii noqon weyso waxaa laga yaabaa inay noqoto 10 alright 10 inay noqoto laga yaabaa okay print okay else if is called si u fahanno wixii la soo daabaco yani else if so marka hadda condition keen hadaa fiiriso x wixii la mid tahay dhahna 9 dabcan lama mid ah qalad waa x 10 noogu jiro okay else loo boodaa else if la fiirina else if x 10 mal mid ha bas tan hal soo daabaca labadan condition lama aadi doono else lama aadayo if tan lama aadi doono so hadaa ran gareena fiiri else is ma dheh else if is called in aan dhahnay ahayd else if is called okay hadaa wacno waa kana sida arki karta else if is called marka waxaa la suubshay condition kan oo kore sax uu noqon waayo kan dambe la fiirina so marka anaga hadda laba condition leh waa haduu badto xataa maanta dhan else if soo celi kartaa else if illa xaaladaada ku tagtid else if illa xaalada ku tagtid kan waxa dhici karna 12 inay noqoto laga yaabaa okay tusaale xabadka oo kale ku darsano else 10 oo kale ninkan yarkaan la rabaa marka hadda inaan soo daabacno okay else if 2 is called okay else if 2 mid labaad ayaa la soo daabacay semicolon mar walba iska hilmaamin okay marka hadda waxa sugeynaa else if 2 is called in loo soo daabaco okay so marka hadda waxa la suubshay x waa la fiiriyay kan malamed condition ma yaa soo baxay laga soo booday else if tan la imaado ma yaa soo baxdo laga soo booday so marka else if tan hadii dhamaadaan oo else if tan laga waayo maxaa dhacay markaas ka bacda else loo soo boodi doona tusaale meeshan 10 aan ka dhahno kale 8 aan dhahno so marka xaalad walba inta false soo baxayso x 9 ma la mid tahay waa maya x 10 noogu jiro waa laga soo tagaa else if la imaana else if x ma la mid tahay 12 maya x 12 la mid ah x 10 ah ku jirto else if tan kala loo imaana x 8 ma la mid tahay waa maya la mid ah so markii oo laga soo quusto intaan dhan waxa loo soo boodi doonaa else if maya else loo soo boodi doonaa kabacdi hadda waxa filaynaa marka else is called in loo soo daabaco okay so marka hadda meesha aragto else is called else loo wacay fikraddu guud marka intaas waayo oo if conditions dabcan marka wax yar refreshment inaan isku soo biyaar rabay oo else sida u shaqeysa else if iyo fikrad guud yar oo inaan ka qaadataan marka insha Allah inaan fahanteen rajeena peace okay isku soo noqod wanaagsan khayrta videogan waxaan rabaa maanta haddana inaan kaga sharaxo ii sheeg ternary operators waxa la dhaho runtii arrintaas waa arrin muhiim ah falaata developer haddii u baahantahay ama mobile developer inaa noqoto waa arrin basically inaa fahanto u baahantahay oo runtii wax badanna ka anfici doonto ternary operators wax kale ma ahan waa laba calaamad waaye oo calaamad su'aal iyo ii sheeg calaamad colon ah
instead of if statementiga maatan intaa qori lahayd inaad labadaas calaamad adeegsato waxay kaa caawinaysaa waxay tahay waa simple use waa si fudud inaad u adeegsato koodkaagana uu dabcan kood yar uu noqdo if intaa maanta dhan if statement aa ku socon lahayd uu koodkaaga tiro badnaan lahaa keliya inaa intaas yarta aa ku ekaato ternary operator is one of the best conditional operators la isticmaalo waaye ani ahaan intaa developmentiga ku jiro midka ugu badan aa isticmaalo waa markii aa conditions aa suubinayo if badanaa ma isticmaalo laakiin waxaa u badanaya ternary operators marka khiyaarta waxaa isdhahay videogan uga faa'iiday ternary operators iyo sida u shaqeeyaan isla aragno dabcan ternary operators luuqad walba way leedahay laakiin waxaa u malaysaa dadka badan inay adeegsanin laakiin one of the best waaye tusaale hadda xiisada oo videogan mid ka horeeya oo if aa uga soo hadalnay haddaa fiiriso waxaa fiirinayna x haddii la mid tahay wax saas x haddii la mid tahay saan so marka hadda anagoon if adeegsanayn oo ternary operators isticmaalayna waxaa fiirin doonaa x inaan jeekino wax ku jiro kabacdina wixii aad doonno soo bandhigan karno tusaale hadda x waxaa noogu jiro variable x laha noo suubsan waxaa noogu jiro 10 noogu jiro marka waxaa rabnaa inaan jeekino x 10 maa noogu jiro mise wax kale noogu jiro okay si u jeekino ma u baahnayn if inaan qorno tookadan waxaa u baahanahay kaliya qiimaha wax noogu jiro oo ah x ma la mid tahay inaan dhahno conditionka meeshaan conditionkaaba ka bilaabayna instead of wax kale qor lahayn conditionka ka bilaabay x ma la mid tahay 10 ma la mid tahay marka intaas aa qortay conditionka intaas ma uga tagaysa calaam su'aalkaaga qornay okay haddii meeshaan ay ka soo baxdo x haddii la mid noqdo 10 haddii ka soo baxdo haa oo true haddii ka soo baxdo conditionkaaga waxa ka suubsan lahayd halkan ku qoro tusaale haa iskaga qorayna way la mid noqoto sax waaye okay inay la noqon x inay 10 la noqon weyso aa dhici karto mararka qaar ma xasuubinay lcd waa ma xasuubinay tookadan laakiin ternary operators ma kala haraan haddii aa ifta aa conditionka aa qortid oo calaamad su'aalka ah else waajibay kugu tahay else inaa qortid so marka else marka tana noo noqonayso ifta waxaa waaye calaamad su'aal noo ah else na kolantaas noo ah else maxaa dhacayo else waxaa suubinayna maya lama mid ahan okay maya lama mid ahan so marka inta daa fiiriso one line of code aa qornay one line of code waxaana suubinay waa jeekinay kaliya waxaa jeekimanoona midkaan falaata markii la joogana dabcan widgetska markaa ku dhex jirto meelo qaar waxaa arki doontaa if statementska aan laga isticmaali karin lama ogol meelo qaar laakiin ternary operators waa ku baxar fakane meelo qaar badana conditions markaa ku dhex xiraysa widgetska waxaa la isticmaalaa ternary operators if statement badana oo compilerku kaa diidi doona error ku qabsanaya marka instead of if markaas xaalad kale iyo waxa u baahnaan doontaa functions ina aadid kuleel badan oo ku daarmi karo so instead of if isku daalin lahayd ternary operators runta aad kaaga fududeynaya dabcan developers kan waa lagu la taliyaa inay aad u isticmaalaan ternary operators so marka hadda meeshaan fiir waxaa dhahan x haddii la mid tahay 10 haa soo daawac haddii la mid ahayn maya okay x maxaa noogu jiro 10 noogu jiro haddii aan rangareen waxaa filaynaa haa inay noo soo baxdo sababta x 10 way la mid tahay sax waaye okay x 9 aa ku shubano conditionkeena haddaa fiiriso x wala mid tahay dhahna 10 bilawga haa noo soo baxday tookada lama mid ahan 10 x 9 aa noogu jirto haddii aan gareena fiiri maya noo soo baxayso iyadana dabcan one line of code aan qornay fikradan ternary operators runtii fikrad cajiib ah waayo oo anid ahaan dabcan aad u adeegsadaa marka insha Allah fikradan inaad hadda fahanteen aan rajeynaa aa ku sii socon doontaan videogan insha Allah inaad fahanteen peace khiyaarta isku soo noqod wanaagsan videogan waxaan rabnaa inaan kaga hadalno glasses markii gaarta la joogo glasseska sida loo abuuro sida loo isticmaalo iyo sheeg video xiga ayadana kaga hadli doono inheritance-ga marka glasses maxaa waaye horta glasses waxaa waaye blueprint waaye oo loogu talagalay in la isticmaalo xaalado kale markii tusaale blueprint-ga diyaarinay xogtana waxaa kusoo shubi doontaa markii aad isticmaalaysid si aan u fahanno tusaale fiican oo match gareynayo waxaa kasoo qaadan karnaa person qof waaye glasska magaciisa tusaale hadda qof waaye glass oo person aan suubsan doonaa qofkaas wuxuu qabi karaa property waxa la dhaho propertygaas marka wuxuu yeelay qofka tusaale propertygiisa waxaa kamid ah magaciisa oo kale sanadkiisa oo kale qof dadku waxyaaba ay ka siman yihiin badana oo commonka property loo yaqaanaa marka gaarta si glasska loo abuuro fashanka inaan kasoo dhex baxno
galaas markii la abuurayo waxaa laga bilaabaa xarafka galaas inaad qorto waaye galaaska magaciisa aa sheegto glasses badanaa waxaa iska fiirisaa markii aad qoraysid xarafka ugu horeeyo capital letter inuu noqdo okay marka marka galaaska oo personal suubsanay fashion wuxuu kaga duwan yahay calaamado laba bracket ma qaadanayo ii sheeg date typekiisa uu soo celin doono galaas waaye asigaaba galaas marka galaas hadda waa suubsanay property muxuu yeelan karaa marka galaas markaa suubsanayso propertyga waa lagu kala duunaan karaa wax walba waxay lahaan karaa tusaale hadda kaar hadduu noo ahaan lahaa meeshan gaarigoo kale hadduu noo ahaan lahaa gaari wuxuu leeyahay propertieska gaariga waxaa ka mid ii sheeg marshada gaarigoo kale breegoo kale waxyaabo noocaas oo gaariga gooni u ahaa jiro hadda tusaale anagoo kale waxaa dhahnay persona dhahnay qofka personka waxaa u yeelan karo tusaale magacuu yeelan karaa sanaduu yeelan karaa so marka tusaale labadaas property ah hadda qaadano magacoo kale string aan dhahno oo name tusaale inta axmed oo kale aan kusii shubno magaca noocaas oo kale iyo tusaale age oo kale age integer tusaale 45 oo kale aan ku shubno so hadda person qofkan person wuxuu leeyahay name uu leeyahay iyo age laba variable waaye person hadda inaan isticmaalno hadda u baahannahay miinkeenana ka dhex wacanayna miinkana waa ogtihiin wax walba oo howsha inta ka dhacaysa dhan meesha laga wacayo asiga waaye marka galaaskan si aan u isticmaalno waxaan u baahannahay wax object loo inaan ka suubsano galaaskan object inaan ka suubsano person waxa waaye common waa laga kala sameeya laakiin dadka way tiro badan yihiin tusaale qofka waa qofka labaad qof saddexaad marka qof walba wuxuu noqonaa hal object uu noqonaa hal object oo gooni u taagan marka si aan galaaskan object uga suubino galaaska magaciisa date type noqonaa hadday waxaa dhihi jirnamaho string iyo integer iyo date typeska laakiin galaas markii la joogo galaaska magaciisa noqonaa date type tusaale person 1 haddaan inta dhahno qofka koowaad person 1 wuxuu la mid yahay person 1 qiimaha uu helayo maxaa waaye qiimaha uu helayo waxaa waaye galaaskii oo hoos ku xusnaa galaaskii hoos ku xusnaa okay person galaaskii oo person ahaa okay hadda variablekan waxaa noo jiro person 1 la dhaho person 1 magaciisa ah soo akhrisano tusaale print aan dhahno person 1 magaciisa person 1 okay dot name yeah person 1 dot name person 1 dot name haddaa fiiriso waxaa ku jiro axmeda ku jiro dabcan age-kiisoo kale haddaa u baahantahay sidoo kale dot age aad dhihi doontaa so objectiga qofka magaciisa dot propertyga uu leeyahay isticmaal doontaa okay marka sanadkiisana waa kaas way soo qoreen laakiin magaca kusii soconayna okay haddaa u baahannahay qof labaad oo kale inaan suubino okay qof labaad oo kale inaan suubino haddaa u baahannahay person oo galaaska ah person 2 oo qofka kale magaciisa ah person 2 u bixinaynaa okay person 2 okay person 2 waa kaas person 2 marka magaciisa asna aan soo daabacno maxaa ku jiro person 2 okay person 2 dot okay name yeah person 2 dot name okay haddaa fiiriso meeshaan okay intaasi qaldan u qora person okay rangaree marka hadda noo rangaree okay meeshaan waa marka su-aasha qofkii koowaad magaciisa wuxuu ahaa axmed qofkii labaad haddaa fiirsana magaciisa axmed waaye so marka labadan qof magacyadooda inay kala duwanaadaan ay ahayd sababta axmed loo soo daawacana waxay tahay qaab oo static ah anaga inta ugu qornay so marka waxaa la subinaa galaaskan qof walba oo isticmaala axmeda loo bixinaa sanadkiisana 45 uu noqon doonaa qof walba oo meesha isticmaalo so marka qof walba si wixiisa gooni ugu noqdaan oo markii inta la injaan gareenayo oo u baxsho waxaa jira function oo constructor la dhaho waa special function waaye oo galaaska dhexdiisa ah galaaskan magaciisa loo qaadanaa constructorkaas wuxuu naga saacidaa objectiga markii la abuurayo qofkan propertieskiisa in la soo sheego qofkan magaciisa iyo sanadkiisa in la soo sheego marka meeshaas waxaa noogu badbaadaya qofkan magac gooni iyo sanad gooni inuu yeesho qofkan labaadna sidoo kale magac gooni iyo sanad gooni inuu yeesho constructorka see u abuurayna okay constructor saa u abuurno nimankan qiimaha laga baxsho iyaga qiimahooda gooniya laga soo qaadan doonaa okay dart laakiin ayaantan dambo 2.5 versions 2.0 si 1ka looga soo baxabo waxay bilaabeen functionka aad abuuranaysid sababta marka qoladan dart waxay keeneen fikrad ah null safety fikradan ayaan dhawii soo saareen waxay kala jeedaan ii sheeg variableska tusaale marka abuuranaysid oo kale
ma rabaan oo kale tusaale variablekan name oo kale markaa abuurtid name qiimo kuma jiro so marka waxay ku dhahayaan name waxaa ugu talagashay inaa u isticmaasho ama inaa qiimo ku shubato ama inaa dhahdo qiimahan hadhowa qiimo ku shubi doonaa ama variablekan inuu null noqdaa laga yaabaa saddexdaas xaaladuu mari karaa marka data typeka markaa qorno calaamadan oo calaama su-aalka ka hormarinaynaa calaama su-aalka marka hadda waxay ka macno tahay variablekan name qiimo gadaala loogu soo shubi doonaa ama qiimo la-aan uu noqon karaa so sidoo kale agena sidoo kale calaama su-aalka marka tookadan waxay ka macno tahay age qiimo la-aan wuu noqon karaa qiimana waa kusoo shuban karaa laakiin haddaa u baahan tahay tusaale name oo kale haddii aa ogtahay inaan gadaal dambo waqti xaadirkan maahane mar kale inaad koorkaaga dhexdiisa ah qiimo ugu soo shubi karto waxaa isticmaali kartaa keywordkaas oo lead la dhaho lead wuxuu kaa saacidaa variablekan waxaa u sheegtay in qiimo gadaal dambe ugu soo shubi doonto so marka anaga hadda waxaa kusii soconaynaa calaama su-aalkeena fikradda null safetygana cashir goona uga hadli doonaa insha allah so hadda labadeena variable qiimihii waa ka titirnay waxaa u baahanay marka constructorkeena inaan abuurno constructor maxaa waaye constructor waxaa waaye special function waaye oo galaaska dhexdiisa ah ka suubsanayno functionkaas oo naga saacidayo galaaskeena objectiska markii la abuurayo object walba qiimo gooni inuu yeesho tusaale hadda galaas waxaa haysanaa person ah oo name iyo age ka kooban marka kor markaa ka wacanayna person 1 iyo person 2 hadday waxay haysteen hal magac so hadda haddii aan constructorka aa suubsano waxaa awood u yeelan doonaa person 1 magaciisa gooni iyo age-kiisa gooni inuu yeesho person 2 na sidoo kale age gooni iyo magac gooni inuu yeesho so marka sidee u abuuraynaa constructor asiga iska function waaye laakiin functionska wuxuu kaga duwan yahay wuxuu qaadanaa magac galaaskaas uu ku dhex jiro so hadda aadaa qorno magac galaaska oo name ah constructorkeena wuxuu qaadanaa labadan lasoo baasgareyn doono labadan property mid walba hadhow goonidiis inuu usoo baasgareeyaa la rabaa so marka anaga hadda inaan inta kusii sheegno waayo tusaale name iyo sheeg integer age okay marka inta waxaan dhahaynaa this dot name wuxuu la mid yahay name okay this dot age na wuxuu la mid yahay age ayuu la mid yahay so okay meeshaan marka maxaa ka wadaa this time sababtaa u isticmaal maxay tahay this waxaan ka wadaa variables kanet oo name iyo age waxaa laga soo baasgareyn doonaa hadhow korkaaneed hadda error ay qabsaday waxay rajeynayaan labadan variable inaan soo baasgareeyo name iyo age mid walba inaan usoo baasgareeyo so marka labadaas variable kor kasoo baasgareyn doono name iyo age waxaa dhahay this oo name iyo age lasoo baasgareyn doono waxay la mid yihiin namekan oo inta kor iigu xusan sidoo kale agena wuxuu la mid yahay agekan oo property kor iigu xusan okay marka intaas suubino waxaa u baahanay haddaa ku laaban objectiskeeni tusaale objectiga koowaad oo kale person waxaan dhihi karnaa waxaa ku jiro faarax okay oo magaciisa iyo da-diisa oo 33 oo kale iska dhihi karnaa waxaa kusoo haray object 2 waxaa dhihi karnaa ii sheeg xaliima okay oo da-deeda 44 so marka hadda haddii aan gareeno waxaa ka filanaynaa objectiga koowaad magaciisa inuu faarax noqdo objectiga labaad asigana inuu magaciisa inuu xaliima uu kusoo baxo so marka haddaaran gareeno meeshan sida ujeedid objectiga koowaad wuxuu noqday faarax ii sheeg objectiga labaadna magaca waa xaliimo sidaas oo kale haddii aad daabacdo hadda ageka objectiga koowaad waxaa ka filan doonaa person 1 dot age oo kale person koowaad agekiisu wuxuu ahaa 33 uu ahaa haddii aad daabacdo waxaa arki doontaa faarax oo 33 agekiisa dabcan xaliim haddaad daabacdana sidoo kale 44 arki doontaa marka glasseska property bes ma leeyihiin maya dabcan property bes ma lahan functions ay yeelan karaan functions ay nooc mid ka u baahan tahay functions waa soo aragnay ku abuuran kartaa tusaale hadda function yaro iska foil ah haddaa suubsano oo tusaale work oo kale shaqo okay shaqo kale haddaan dhahno sababta functionkan iskaga suubinaa waxay tahay shaqo labada qof bay wadaagi karaan person 1 iyo person 2 labada bay wadaagi karaan oo shaqo iyo shaqo isla shaqeyn karaan qof walba gooniis u shaqeysan karaan so functionkan wax weyn ma ahan kaliya printigana soo celinaa oo tusaale okay iga tir wax weyn ma ahan work oo kale work success okay work success so marka functionkaneeto inaa isticmaal haddaa u baahanay tusaale person 1 functionkan inuu isticmaalo hadduu u baahan yahay wuxuu dhahaa
objectiga oo person1 dot functionka magaciisa oo work okay so marka hadda person1 wuu wacday haddii aran gareysid person1 objectiga waxaa in loo soo daawaco work success sidoo kale person2 asigana wuu awoodaa inuu access gareeyo person2 dot work okay hadduu wacdo the same asigana wuu awoodaa sidoo kale dabcan okay marka work labadaba way awoodaa inay soo daawacdaan marka ii sheeg hadda xiisadeena maanta intaas inoogu ekeed waxaa ku sharaxayna glasses iyo howlaha aan ku qabsan karno so far hadda waxaa fahanay propertieska glasska sida loo abuurto glasska markaa abuurato laftirkiisa sida object uga suubsan lahayd objectiskaas u suubisa mid walba qiimo oo value gooni ah sida u siin karto glasskaaga dhexdiisa functions haddaa ku abuurato functionskaas inaad isticmaali karto ii sheeg constructor inaad abuuran karto constructor qiimaha aad u dhiibi karto insha Allah inaa intaas wax ka fahantay inaan rajeynaa xiisadda xigto ayaa noo xigo peace okay qaybta isku soo noqod wanaagsan xiisadda maanta waxaan rabnaa inaan wax yar ku falanqeeno xoogaa ku fahanno inheritance markii oo dart la joogo qaabka u shaqeeyo sida loo isticmaalo qaab noocaas oo kale inaan fiirino inheritance macna ahaan horta haddii aan la sharaxo waxa waaye dhaxal waxaa laga yaabaa marka inaad isweydiiso programmingka markii la joogo dhaxal muxuu taraa in wax la dhaxlo kale so marka su'aasha si uga jawaabno waxaan u baahannahay casharkan si deep la inaan u fiirino tusaale inheritance si aan u sii sharaxno qofkan person waaye okay person marka wuxuu leeyahay laba property leeyahay name iyo age waxaa dhici kar marka user kale inaan inta ka abuuran super user la dhaho oo class kale ah oo isla sidaan oo kale hawshan oo kale inuu qabto oo laga yaabo name iyo age oo kale inuu qaato functionkan work dhexdiisa in asigana ka dhaxwacno so instead of glasskaas inta suubsano haddana hawshan oo kale u guurin lahayn waxa ka qurux badan kaliya inaan dhahno glasska oo super userka oo inta hadda abuuran doono waxa soo dhaxshaa person wax ku dhex jiro so which means anagoon hawshan dhan galin inuu si easy oo fudud u suubsho xogtaana uu soo dhaxlo kabacdi asigana wuxuu ku darsan karo uu ku darsado simply hadda qofkan person waaye person kan oo kale tusaale qof haddaan ka dhigno aabo kale haddaan ka dhigno wiilkiisa oo kale uu dhaxal karaa soo maaha wiilkana waxyaabo gooni ah oo odayga heesan oo kale uu ku darsan karaa okay saamidaas u soo bina markii glass waxa suubsanaynaa oo super user la dhaho magaca doonta u baxsan kartaa laaga hadda super user iska dhayana maadaama asiga midka wax dhaxli doono uu yahay okay si uu dhaxla glasska kale falaata markii la joogo waxaa la dhahaa keywordkana la adeegsadaa extends marka dhahdo waxaa sheegaysaa glasska kale oo la dhaxli rabo person anaga hadda person la dhaxli rabaa okay meeshan hadda u jeedo hadda error ay qabsaday waxaa la okay muxumo glasskan super glass wuxuu dhaxlaa glasskan oo person muxumo waa arrin fiican laakiin glasskan person wuxuu qabaa function constructor la dhaho oo laba variable oo name age uu qabaa dabcan glasskan oo super userna name age ma qabo so marka ina u sheegna u baahanay aan dhahno name super user kan asigana waxaa qasab ku ah inuu adeegsado name iyo user says midaas u dhaheynaa waxa u dhaheynaa laftirkiisa constructor ka suubinaynaa super oo qaadan doono insha Allah asigana string oo name ka ah iyo integer oo age ka ah okay kabacdi super ina dhahno okay super name comma age okay marka su'aasha meeshaan ka imaanaya super user aan dhaho inta su'aasha meeshaan ka imaanaya superkan aan gadaal ka raaciyo muxuu ka macno yahay superkan aan gadaal ka raaciyo wuxuu ka macno yahay instead of aan qori lahaa labadan variable inta keensan lahaa waxa u sheega glasskan inuu midka wax dhaxlaayo yahay waxa uu wax ka dhaxlooyina uu yahay isha glasskan person so marka kana superka super sababta uu ku yeena waxa asiga wax dhaxlooyo so marka super ina dhahdo waxa uu dhaxlaayna aad sheegtid qiimaha uu dhaxlaayna wuxuu ka keensan doonaa glasskan kale marka intaas sheegna hadda code kale ma qorin kaliya intaana qornay glasskan hadda super wuxuu awood u leeyahay wax walbo inta ku jira inuu access gareeyo haddii ahaan lahaa magacan iyo age kan ama iyo function kan inuu access gareeyo tusaale hadda glasskan super suubsana object ka suubino object sida loogu suubsho cashirka hore soo aragtay okay super user glasska magaciisa iyo qofka objectiga magaceeda
tusaale person 2 person aanu jira person 3 aan dhahno person 3 okay person 3 super user okay marka inta daa fiiriso super user hadda waxaana meeshaan qiimo u baahannahay sababta maxaa waaye super user wuxuu dhaxlay glasskan uu dhaxlay so marka waxaa lagaaga baahan yahay name age asagana inaa baas gareyso dabcan name age anagana inta kuma soo abuuran hadda aragto kaliya waxaa u sheegnay inuu super uu ka qaadan doono glasskan kale so marka inta hadda waxaa u baahantay inaa ka sheegto qofkii saddexaad magaciisa asigana waxaa iska dhigi karnaa cabdi okay cabdi oo asigana 55 jiro okay hadda marka waxaa awoodnaa inaan soo daabacno tusaale print super user person 3 dot name waa access garan karnaa ujeedaa dot markaan dhaho waxaa awood u leeyahay age iyo name macala ii sheeg functionki oo work oo hoos noogu qornaa laftirkiisa access garan karaa sababta maxaa waaye ninkan super user wuxuu dhaxlay galaaska person ahaa so marka hadda haddii aan isku dayno magaciisa inaan soo daabacno waa awoodnaa inaan soo daabacno magaciisa muxuu ahaa magaciisa cabdi ahaa waa kana cabdi okay marka super user laakiin waxyaabaha uu qaas u yeelan karaa jiro oo ninkan kale oo person u access garan karin tusaale function kale oo yar hadda inta ku suubsano oo void ii sheeg magac u baxsano tusaale info kale iska dhahno info function yar oo iska void oo soo celinaya print okay print soo celinaya info success ama super user oo kale super user okay function void ah suubsano oo info la dhaho so marka haddii aad inta fiiriso hadda korkaan ku laabano person 3 dot info access garan karaa wax error nama haysta hadda person 3 wuxuu awood u leeyahay functionkan oo info inuu access gareeyo okay person 2 iyo person ii sheeg 1 awood ma u leeyihiin ayaga inay functionkan access gareeyaan let me check person 1 dot info okay info awood ma u leeyihiin iyagana dabcan may awood uma lahan sababtoo ah functionkan info wuxuu gaar u yahay super user oo gaar u yahay super user asaga lama dhaxlay asaga wax dhaxlay ma fahamtay fikradda marka super user asaga wuxuu dhaxlay person so person wax ku jiro asoo access garan karaa laakiin asi wuxuu yaaba uu suubsado qofkii person ka tirsanaa ma access garan karo asaga bisi private u yihiin so marka hadda inta aan laga diidayo because functionkan info lama yaqaano laakiin user 3 wuu awoodaa functionkaas info inuu u access gareeyo tusaale hadda soo daabacno kale user 3 functionka info waa kana super user uu soo laab okay fikradda marka oo ii sheeg inheritance dhan lagu sheegaa intaas waaye waxaa waaye glass kala dhaxlaayo fikraddan markii daarta la joogo ama falaata runtii aad loo isticmaalaa marar badan oo arki doontaa marka inaa fahanto waa iska fiican tahay ii sheeg hadda waxaa meeshan ku fahanay hooshan oo dhanaan ka badbaadnay inaa constructorkan abuurno ii sheeg magaciidiisa suubino workan functionkan inta soo dhex gashano instead of intaasna aan qor lahayn kaliya hadda waxaa nooga baaqatay inaan dhahno galaaskan wuxuu dhaxlaa galaaskaas oo hore u jiray so anaga hadda example-keen labadoo xabo waaye waxaa dhici karta projectigaaga inuu project runtii aad u weyn yahay laba galaas oo howlo badan meelo badan iskala siman inay isku imaadaan so instead of hoosha usoo guurin lahayd galaaskan kala keen lahayd kaliya waxaa kaaga filan inaad dhahdo galaaskan wuxuu dhaxlaa galaas hebel oo hore iigu jiray codiski iyo wixii aa qorto dhanna hal mar inta ka adeegsato instead of mar kale aa qori lahayd marka fikradda ugu weyn inheritance sidaas waaye muhiimadeeda insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen iyo sida loo isticmaalo peace video xigo aan wax insha Allah